السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دبادة سومزون أكاديمي كورسكنا عصب بانتا وحو كسابسي هاي Adobe Illustrator Adobe Illustrator إن شاء الله انت عن كورسكنا ودا دونو حيوات عدكو برد دونتان وحا كميدا سيدا لو ديزاين غري شهادو لوغو كالندر ID card business card invoice iyo waxyaabo aad fara badan fadlan ha mogaanin inaad kanaalkeena subscribe saarto like iyo comment ama wax tala ah hadii ay jiraan aan bilowno course-keena markuu horeysa 10ka koowaad maanta wuxuu ku saabsan yahay sidee setup-ka Adobe Illustrator loo soo kiciyo wareen double click leh setup-kaada Adobe Illustrator markuu ku soo kaco Adobe Illustrator-kaada waxa ku soo bixisa interface-kan ama shaashadan yar waa halkii aad ka maamuli lahayd application-ka ama setup-ka ama program-ka aad rabto inaad sameyso markuu horeysa aad rabto program inaad soo kiciso waxaad tagaysaa file kadib waxaad dhahaysaa new marka aad dhahdo waxa ku soo baxayo sidoo kale boxkan waa halkii aad ka maamuli lahayd size-da aad rabto ama cabirada aad rabto program-ka aad rabto inaad sameyso meesha ugu horeysa waxaad ku qoraysaa name program-ka aad rabto inaad sameyso magaciisa ayaa ku qoraysaa haddaad rabto logo waxaad qoraysaa logo halkan ku xigto waxaa loo yaqaanaa artboard waxa waaye waa area-da lagu shaqeeyo marka aad rabto inaad design sameyso ama program-ka aad sameyso area-da yar aad rabto inaad shaqada aad ku qabato ayaa waxaa loo yaqaanaa artboard-ka waa la badi karaa hadda number 1 waa 2 3 4 5 ilaa intaa rabto ayaad geeri kartaa artboard-ka halkan ku xigto waxaa ku jiro size-da waxaa waaye waa cabirada aad rabto mararka qaar inaad qaadato haddaad rabto inaad sameyso warqad A4 waxaad dooranaysaa A4 A3 B5 B4 letter waxyaabahaas midkaa rabto ayaa dooranaysaa waxaa loo yaqaanaa marka waa size cabirada la qaato halkan ku xigto waxaa loo yaqaanaa unit waxay tahay shaqadiisu hal beeg rabto inaad qaadato ma centimeter rabtaa ma millimeter rabtaa ma pixels ma inch rabtaa iyo waxyaabaha lamid ah halkan ayaad ka dooranaysaa cabirka rabto inaad ku shaqeyso halkan waxaa ku jiro width oo ah balaca intaa rabto ayaa siisanaysaa cabirkaaga height iyo jooga oo sheygaas uu lahaanayo qaybta labaad ama qaybta hoose waxaa loo yaqaanaa blade waxay tahay waa area-da aad rabto markaad program sameynayso area-da aad rabto inaad cabirto ama aad ku ekeysiiso qoraaladaada si aysan u gudbin ama safe area loo yaqaano oo ah markaad design sameynayso oo aad rabto program-ka inaad sameyso si aad iskaga ilaaliso qoraaladaada inaysan meeshaas dhaafin ay darbiyada ay u gaarin ayaa waxaa loo yaqaanaa blade marka afarta gees ayaad ka sameynaysaa oo kale top bottom left iyo right advanced-ka waxaa ku jiro color mode-ka waxaa waaye waa labo CMYK iyo RGB CMYK waa color loo isticmaalo mashiinada wax daabaco mashiinada waaweyn CMYK waxaa la soo gaabiyay cyan magenta yellow black RGB na waxaa waaye waa red green iyo blue waa saddexda color ee standardka ah raster effect waxaa waaye waa raster iyo vector waxaa loo yaqaan jiro raster haddaa maqasho waxaa waaye waa sawirada ama image-ka jajabka uu ku jiro ama fasiix aan ahayn vector haddaa maqato waa midka illustrator-ka lagu sameeyo oo ah sawir clear markaa rabto rasterkan oo kale badanaa ama cabirkaa rabto sheyga markaa rabto soo bandhigayso badanaa waxaa la qaataa high oo ah 300 iyo wixii ka sareeyo haddaa 300 wax ka hoose haddaa qaadato waxaa laga yaabaa sheygaada quality-giisa inuu lumo marka ha qaadan 300 number ka yar ha qaadan insha Allah qaabka loo qaato numberada iyo qaab wax loo save gareeyna casharada xiga qaada doona kadib waxaa dhahaysaa okay markaa dhacdo waxaa ku soo bixiyo qaybta cad waxaa loo yaqaanaa artboard haddaa maqasho waa kane area-dan cad ee aad rabto inaad ku shaqada ku qabsato ayaa waxaa loo yaqaanaa artboard sidee project loo soo kiciyaa sidee designada ama size-ka loo saxdaa waa baratay waxaa rabnaa marka casharka inaan ku darno sidee loo save gareeyaa program aad samaysa ama shaqo aad ka qabatay waxaad tagaysaa file kadib waxaad dhahaysaa save as laba save gareena jirto save gareen loo yaqaano save as iyo save gareen loo yaqaano export markaa rabto filekan inaad u save gareyso sida Adobe Illustrator oo kale hadhow berito marka uu wax ka qaldamo aad rabto inaad ka saxdo waxaad tagaysaa save as markaa rabto program-kan markaa shaqada ka qabato inaad rabto as image inaad u aragto waxaad dhahaysaa export laba save gareena jirto file markaad tagto save as waxaad ku save gareynaysaa as Illustrator markaa rabto as image inaad soo bandhigtana waxaad dhahaysaa export
labadooda idin tuso save as aan ka bilowno save as ku dhufo save as markaa ku dhufato aad doorato meesha rabto inaad dhigato kadib halkan type save as type-ka ayaa furaysa save as type-ka waa inuu ahaadaa AI haddaa rabto haddii lagu dhaco programkeena waxaa noogu dhigtaa PDF waxaad dooranaysaa PDF Adobe Illustrator file ayaad ku save garaynaysaa PDF sidoo kale waxaa qaadan kartaa EBS Illustrator EBS waa sida Adobe Illustrator file Adobe Illustrator ayuu kusoo kacaya haddaa rabto inaad ku save garayso cabiradan kale ha isticmaalin oo waxaa laga yaabaa programming kale in loo isticmaalo marka haddii aad ku save garayso hadhow waxaa laga yaabaa inuu kusoo kici waayo failka aad save garayso marka cabirka ugu saxan ee la qaato waxaa waaye Adobe Illustrator AI haddii laga codsado PDF na waxaad doorataa PDF-ka kadib waxaad dhigtaa save save markaa dhahdo kadib waxaa kusoo bixaysa okay dheh okay markaa dhahdo shayga waa save garaysay waxaana ku save garaysay meesha rabta inaad dhigato aniga waxaan dhiganay desktop-ka file ka tirsan ayaa dhiganay halkaas ayuu ku yaalaa berito markaa failkaas aad double click dhahdo wuxuu usoo kacayaa as Adobe Illustrator save garaynta labaad waxay tahay file kadib waxaad dhigaysaa export shaqadeedu waxay tahay waa shayga aad rabto as image inaad u save garayso shayga meesha rabto aad dhigato ayaa dooranaysaa kadib magaciisa ayaa ku qoraysaa halkaa badanaa magaca kood aad kusoo save garaysa ayuu kuu qaadanayaa save as type-kana waa furaysaa waxaad dooranaysaa shayga aad rabto inaad sawir aan ka dhigto JPEG ama PNG JPEG inaad isticmaasho ama inaad isticmaasho PNG waxay noqonayaan sawiro waxay ku save garaysmayaan as image waxyaabahan kale cabirada kale ha isticmaalin waxyaabo kale programming kale iyo barnaamij kale ayaa loo isticmaalaa haddaa rabto sawirka inaad save garaysto midka ugu wanaagsan ee lagu save gareeyo waa PNG kadib waxaad dooranaysaa use artboard wuxuu kaa saamaxayaa shayada aad samaysay aad shaqada ka qabatay hadduu yahay 2 artboard oo 3 artboard ama more than 1 artboard inaad samaysato waxa loo yaqaano artboard hebel iyo soo daawac ama artboard hebel ayaa rabaa as image inaad ugu tusto use artboard haddaadan click siin shayga aad save garaysay artboardka wixii ka baxsan waxaa laga yaabaa inuu save gareeyo oo hadhow sawirkaadii ama shayga aad qabatay image aan markuu kuu soo bandhigo aad aragto waxyaabo kale meelaha saarsan marka si aad iskaga saxdo ama artboardka kaliya inta shaqada ku qabatay lagu soo bandhigo waxaad dhahdaa use artboard markaad doorato halkan waxaa ku qoran all iyo range all waxaa laga yaabaa inta artboard ee xilligaas ii kacsaneed ee aan shaqada ka qabtay dhammaantood isoo save gareeyo image ugu soo bandhig haddaadan rabin waxaad tegaysaa range waxaad dooranaysaa artboardka u baahan tahay halkaas ayaa gelinaysaa kasoo qaado kale book ayaa sameynaysay oo ka kooban 12 page waxaa rabtaa page 7 inaad soo bandhigato halkan waxaa gelinaysaa page 7 kadib waxaad dhigaysaa export wuxuu kusoo bandhigaa oo kaliya page 7 as image haddaa rabto inaad dooratane dhammaantood all aad jeeg saaraysaa haddaa rabto page ka mid ah page 1 oo kale range ku dhufo page-ka u baahan tahay ayaad halkaas gelinaysaa page 1 haddaa rabto page 1 haddaa rabto page 1 up to page 5 oo kale waxaad dhigaysaa /5 wuxuu kusoo bandhigaa page 1 ilaa page 5 kadib waxaad dhahdaa export why invalid artboard range muxuu ka wadaa aniga waxaan gelinay 1 up to 5 artboardka aan haysan waa hal keliya sidaas darteed marka wuxuu ku leeyahay invalid artboard range waa qalad waa sax artboard badan meesha nooma yaalaan marka artboardka sidaas ayaa u gelinaysaa artboard aniga hal artboard waaye wankaa noo ahaada kadib export aad dhahaysaa kadib export marka dhahdo halka resolutionka waa muhiim resolutionka haddaa taa idin sheegay ee raster iyo vector waa halkan meesha ka saxayso haddii aad ka dhigto medium oo 150 image-ka hadhow soo baxayo sawirkaada wuxuu noqonayaa sawir quality-giisa uu liito oo aan muuqaal qurxoon aan lahayn haddaa kasii hoos aad ka dhigtane ever ay noqonayaan marka numberka ugu saxan ee ugu fiican ee sawirkaada ka dhigaya mid nadiif ah waa 300 haddaa rabto waa ka badsan kartaa another ku dhufanaysaa halkaas haddaa rabto 400 aad geli kartaa laakiin the standard one is 300 above waa 300 iyo wixii ka sareeyo don't use less than 300 ha isticmaal weligaa 300 iyo wixii ka yar si sawirkaada quality u lahaado marka standardkeena iska qaadano 300 dooro kadib halkan waxaad dooranaysaa background color badan oo white simal
background color maxaa ka wada sawirkaada markaa hadhow furto ama kirig arada asoo sawirkaada soo baxo backgroundgiisa ha noqdo white black hadaa ka dhigto hadhow wuxuu noqonayaa background white ah haddaa dhahdo transparent wuxuu noqonayaa sawirka markuu soo baxo transparent inuu noqdo marka sawirka markaa rabto sawirada badanaa backgroundooda waa white marka background white ka jeeg saaro oo sorry background white ka jeeg saaro kadib waxaa dhahdaa okay markaa dhahdo shaqadii aa halkaa ku qabatay waxaa lagu save gareynayaa as png file as image hadhow waxaad arki kartaa shaqadaadii oo ah sida sawir kadib waxaad isticmaali kartaa inaad meelo sawir saarato ama inaad Facebook soo dhigato ama xaysiin oo isticmaasho kale saas oo kale haddaa u baahnaato marar qaarne waad isticmaali kartaa markaa sidaan oo kale sawirkeena marka waa lagu save gareynayaa shaqadii meesha dhigatay ayaa lagu geynayaa lesson 1 insha Allah waxaad fahanteen sidee file loo soo kiciyaa sidee loo save gareeyaa la socdo casharadeena kale insha Allah waan ku qaadan doono tuulashan si aan shaqada u qabtaan iyo waxyaabaha aan idin sheegay aan course-kan ku baran doono insha Allah ayagoo dhameystiran aad u mahadsantihiin thank you so much